maxamed maxamuud waxa uu ahaa askari ka tirsan ciidamada Puntland waxaana haatan uu noqday kabtan ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland waxaanu darajada intaas leegu ku mutaysay kadib markii uu gaari u watay oo ay saarnaayeen 3 qori oo ula soo goostay ciidamada Soomaaliland isla markaasina uu ku soo biiray askarigani maxamed maxamuud ayaa munaasabad soo dhaweeyna oo darajadaasi lagu siinayo waxa loogu qabtay xarunta taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland ee ku yaala magaalada Hargeysa iyadoo halkaas ay ka soo qayb galeen inta badan hoggaanka ciidamada qaranka Soomaaliland iyo taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland Sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani waxa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri munaasabadan waan doono in lagu dalacsiiyo mas'uul ka mid ah ciidamada oo magaciisa la yiraahdo maxamed maxamuud yuusuf ninkaasi waxa weeyaan waa nin reer Soomaaliland laba xidig lu ka ahaan jiray ciidanka Puntland in badan buu inaga soo horjeeday isagoo u dhashay Soomaaliland haddana qofo maruu buu soo hanoonaa uu wado fiican soo raaca wuxuu noo yimid isagoo wadankiisa ku soo noqday oo waliba si wanaagsan oo sharaf loogu soo noqday sida awadeed mudan wasiir waxaan munaasabadan aan doonaa inaad ku guddoonsiiso darajadii loo gartay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaa waxa isaguna halkaas uu ka jeediyay erayo uu ku soo dhaweynayo askarigaasi isla markaasina uu ku guwaabinayo dhammaan askarta kale ee ciidamada qaranka Soomaaliland maxamed maxamuud yuusuf waxaan ku leeyahay saaka meesha taagan tahay waa ciidaadii waa qarankaagii waa dalkaagii waa meeshaad u dhalatay inta sarkaalo ku ag taagan ninka xiga ma jirto qof ka sheegan karaa ma jiro حقا مواد كست أولي هاي أو مالنت هذا أولتي دل شذا هذا أولتي كوسيسي عد كاغادي كرتا مجرت هذا سلاذا شريت الدين عباد شرتي ما أنت واحد شوكتال كتاعنتي مناسبة ده شرف كا يوم كسر وأنت هالإقبال وسي أنت مغلس أو ده هالكيسي وشوكتنا وحن ليه هاي دوارك تاني كي صاحب كينا ما أنت مش تاجيه شرفت عسكري كرامة سيدا لو قدرين يواركتان إن ديننا إذا أسفانتان سومالينا نمدو معها وحرر ليه هاي وحيد ليه هاي ودلشوي ورانو الشيء وحرم لنا يا التبليغين تو قف مالين بيقعدا وحرون محمد محمود إنه ما أنت ذلك إن لا تاجين هاي فهمنا وحيد هاي ودت كيسي كسو بيري محمد سودو مر لوادي مرصد حاد على بحدق له ها حدق بالو قدر هذا هو كابتن وي ان شاء الله دمي ما شاء الله ان شاء الله درجه بدنا وافور شينا بدن يو هذا واجبات عيدان قرن غدوتي محمد كراسي هون كيبل تي في مقالة هرقيسة